Somaliland halis dhinaca maalgashiga ay ka soo wajahayso xeerka isgaarsiinta ee dhawaan baarlamaanka Somaliland ay ku sameeyeen kaabista iyo wax ka bedelka kaasi oo meesha ka saaray heshiiskii xukuumadda Somaliland ay kula jirtay shirkadda Sam Cable ee dhinaca internetka. Wargeyska caanka ee Daily Nation, wargeyska The Stand Media iyo sidoo kale warbaahinta Citizen ee dhamaantood xarumahoodu ay yihiin magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa waxay baahiyeen qormooyin ay ku sheegeen in wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay xeerka meesha lagaga saaray heshiiskii ay xukuumadda Somaliland hore ula gashay shirkadda Sam Cable ee dhinaca ganacsiga uu caqabad ku noqon doono maalgashiga mustaqbalka lagu sameynayo Somaliland. Waxaana warbaahintu sheegeen in siyaasadaha isdiidan ee Somaliland ka jira ay caqabad ku noqonayaan maalgashadayaasha. Ugu horeyn warbaahinta Citizen ayaa warbixin ay boggooda ku baahiyeen ayaa waxay ku sheegeen in Somaliland ay halisi ka soo food saari karto xeerka isgaarsiinta dalka ee dhawaan baarlamaanku ay ku sameeyeen wax ka bedelka iyo kaabista. Warbixintani oo ciwaan looga dhigay Somaliland siyaasadaha ka dhanka maalgashiga oo ay diyaarisay warbaahinta Citizen ayaa waxay ku sheegeen in Somaliland oo aqoonsi caalami ka raadinaysa kuna caan baxday nidaamka dimuqraadiyadeed iyo suuqa xorta ee ganacsiga iyo dhaqaalaha ay hadda qaaday dib noqosho oo caqabad ku noqonaysa fursadaha maalgashi ee lagu sameyn lahaa dalka. Wargeysku wuxuu warbixintiisa ku sheegay in khubarada siyaasadda iyo dhaqaaluhu ay aaminsan yihiin natiijada ka dhalatay wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyay xeerka isgaarsiinta dalku ay saameyn weyn ku yeelanayso Somaliland marka la eego dhinaca maalgashiga. Arrintani ayaa ay ku sheegeen inay sababtay warbixin u dhawaan qoray wargeyska The Capital ee ka soo baxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kaasi oo qoray warbixin sheegaysa in dowladda Itoobiya ay joojisay saamigii ay ku lahayd maalgashiga iyo horumarinta dekedda Berbera. Somaliland waxay heshiis la saxeexatay shirkadda Sam Cable si ay maalgashi ugu samayso xadhigga fiber optiga iyo abuuritaanka kaabayaasha ku habboon ee muwaadiniintu si ay u helaan internet ku filan ayaa ay tiri warbixintani. Waxaana uu intaasi raaciyay in heshiiskan loo arkayay fursad maalgashi oo soo jeedinaysa maalgashadayaasha kale ee raba inay maalgashi ku sameeyaan Somaliland. Heshiiskani waxa uu Somaliland siiyay kobaca ay u baahan tahay ee ah inay la shaqeyso shirkadaha caalamiga. Wargeyska The Stand Media ayaa isna waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay isbedelka lagu sameeyay xeerka isgaarsiintu waxa uu niyad jabinayaa maalgashadayaasha Somaliland. waxaana uu wargeysku sheegay in isbedelka iyo kaabista lagu sameeyay xeerkaasi uu dhaawacayo sumcaddii Somaliland. waxaana uu wargeysku isku xidhay isbedelka lagu sameeyay xeerka iyo warka ay jariirada Capital ee Itoobiya dhawaan qortay ee dekedda Berbera ku saabsan. Talaabadan uu baarlamaanka Somaliland ay sameeyeen ayaa wargeysku uu ku sheegay inay raad xun ku yeelanayso Somaliland. waxa uu ku soo gunaanaday warbixintiisa in talaabadani baarlamaanka Somaliland ay ku laaleen heshiiskaasi ay dhaawacayso maalgashiga. Ugu dambeyn wargeyska The Daily Nation ayaa lagu qoray warbixin ciwaan looga dhigay siyaasaduhu waxa ay dilayaan maalgashiga. wargeysku wuxuu sheegay in maalgashadayaal badani ay indhaha ku soo jeedinayeen Somaliland isla markaasina ay doonayeen inay dhaqaalahooda geliyaan dalka curdinka ah ee aan aqoonsiga haysan wali. dalkani awood uma laha inuu la xidhiidho hay'adaha dhaqaale ee caalamiga ah oo uu kalidii ku soo jiidan karo maalgashi shisheeye. hase yeeshee shirkado gobol iyo kuwa caalami ah ayaa qaatay khatarta inay maalgashadaan Somaliland oo aan la aqoonsan wali. waxaana natiijadaasi noqotay in Somaliland ay ka soo muuqatay warbaahinta caalamiga inay tahay dal istaraatiiji ah oo u diyaarsan ganacsiga. waxaana Somaliland heshiis ganacsi la saxeexatay shirkado badan oo caalami ah balse waxay tilmaameen in wax ka bedelkan iyo kaabistani baarlamaanku ay ku sameeyeen xeerka isgaarsiintu uu wax u dhimayo maalgashadayaasha Somaliland doonaya inay yimaadaan. waxaana wargeysku uu sheegay in heshiiskaasi baarlamaanka Somaliland ay meesha ka saareen loo arkayay heshiis maalgashi oo dunida tusi kara sawir ah in Somaliland ay u